salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dirhaantiinba waa mar kale iyo barnaamijkeena Baadigoob waxaanu maanta ku soo qaadan doonaa in kula faguri doona taariikhda faca weyn ee magaalada Saylac. Magaalada Saylac waa magaalo taariikhi oo aad u daaweyn, rasmi ahaan lama yaqaan markii ugu horeysay ee la dego, balse waxaa lagu tilmaamaa in ay ka mid tahay magaalooyinkii ugu horeeyay ee ka hirgala bariga qaaradda Afrika. haddaba dhegeystayaal ama daawadayaal maxaad ka taqaanaa taariikhda faca weyn ee magaalada Saylac? waa arinta aynu kula faguri doono barnaamijkeena kan. magaalada Saylac waxa ay ku taala cidhifka xeebta waqooyi galbeed ee Somaliland, iyadoo u dhow xuduudda dhinaca Djibouti. taariikhdii hore waxa ay xarun u ahayd magaalada Saylac boqortooyooyinkii kala Hayfaad iyo Adal. xilligana waa magaalo madaxda gobolka Salal ee Somaliland. magaalada Saylac waxa ay soo dhisneyd qarniyo tiro badan, waxa iskaga dambeeyay boqortooyooyin badan oo muslimiin iyo kristaan isugu jira. kasoo dhacay dagaalo fara badan, kolboqol ay qabsan jirtay. waxa ay soo dhisneyd muddooyin fara badan ka hor diinta islaamku inta ayna soo bixin, sida uu cadeynayo buugga lagu magacaabo The Christos RNCC. kana taariikhdii hore ee Greega waxa lagu sheegay in magaalada Saylac ay jirtay islaamka hortii, isla markaasina ay ahayd mid ganacsiga ku caan ah. ganacsigii u dhaxeeyay Soomaalida dhulkaasi degta iyo Masaaridii hore. hase ahaatee dokumentiga Greega ama qoraalkan waxa lagu sheegayaa in ay Saylac xilligaasi magac kale lahayd, magacaasi oo loo oran jiray Afaleti. diinta islaamka ayaa Saylac soo gaadhay wax yar uun kadib markii Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee iyo asxaabtiisu ay u soo hijroodeen magaalada Madiina. waxaana magaalada Saylac imika kasii muuqda raadad muujinaya in ay Saylac ka mid ahayd meelihii ugu horeeyay qaaradda Afrika diinta islaamku ay soo gaadho, sida masaajidka qiblateynka, kaasi oo leh laba qibladood oo mid Kacbada eegaysa mid kalena u jeedo dhinaca Baytul Maqdis. taasi ayaana marag ka noqonaysa in masaajidka qiblateynku in la dhisay intii rasuulka naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatee la farin inuu dadka dhinaca qiblada u tujiyo. masaajidka iyo labada qibladood ayaa haatan iyadoo mid kamid ah qiblooyinka ay wax kasii muuqdaan. daawadaanba dhageystay si aynu haddaba macluumaad dheeraad ah uga helno taariikhda faca weyn ee magaalada Saylac, bal aynu eegno buugaagtii laga qoray iyo raggii sahamiyayaasha ee soo maray ama wax ka qoray magaalada Saylac. dhamaadkii qarnigii 7 qoraaga lagu magacaabo Yacquubi ayaa waxa uu ka qoray isagoo sheegaya in magaalada Saylac ay ahayd magaalo weyn oo aad u daaweyn, kuna nool yihiin dad Soomaali ah oo muslimiin ah. taariikhdu markay ahayd 1331 waxa magaalada Saylac ay miday badamareekii iyo qoraankii caanka ah ee u dhashay dalka Morocco ee lagu magacaabi jiray Ibn Battuta waxa uu ku sheegay buuggiisa lagu magacaabo Burundi inuu ka soo kicitimay dalka Yemen kadib markii uu 4 maalmood ku soo jiray halkii ugu horeysay qaaradda Afrika ka soo deganay ahayd magaalada Saylac. daawadayaal intaasi waxay nooga qaybtii koobaad ee barnaamijkaasna maanta ku soo qaadanay taariikhda faca weyn ee magaalada Saylac. waa isku dabaridkii habeyntii Cabdimaalig Aadan Xuseen iyo soo jeedintii aniga Mulkhayr Maxamed Baaruud. intaynu ku kulmi doono qaybta xigta. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.